madaxda maanta gobolka timi madaxweynuhu ugu sareeyo wasiirka daaqiliga ee hawshan leh amniga oo dhami hoos yimaada uu kamid yahay waxa ay mar walba ku celcelinayaan war nabadgelyada annaga ayaa ku filan hanoo gacan dhaafina reergaabay si gaar u la hadlayeen sanaag bay si gaar u la hadlayeen waxay leeyihiin markiiba hadii waxa dhacaan dhimashadu waa meel walba waa lagu dhimanayaa oo tacaddat al-asbab wal mawt waxa qof walba wuxuu ku dhimanayo inuu qof bini aadmiga ku baxayo inuu meel ka soo dhici inuu gaari jir Ilaahay baa qoray wax baa qarayna maaha war nagu sima bay leeyihiin oo sidii dambiilaha loo qaban lahaa noo daba taagnaado nagu sima laakiin idinku ha nooga horeeyeen marka waxaynu u baahanay walaalayaal si nabadgelyadeena ay u jirto in maamulkeena iyo madaxdeena inaynu adeecno hogaansano